inta ururka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ujeedadiisu ahayd inay ku muujiyaan sida xarakadu uga xun yihiin gumaadka muddada dheer ay yuhuudda ku hayso shacabka muslimiinta ee reer Falastiin iyo burburinta ay had iyo goor ku hanjabto xukuumadda Israa'iil inay ku sameynayso masjidka barakeysan ee Al-Aqsa waxaana banaanbaxan oo dhacay ka hor iyo kadib salaadii jimcaha ka qayb galay boqolaal dad oo isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo qaarkood ay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ka turjumaya asbaabta banaanbaxa oo ka dhan ah yuhuudda tilmaamayayna xasuuqa ay ka geysato dhulka Falastiin. خيبر يا يهود خيبر يا يهود خيبر يا يهود جيش محمد بدا يعود. banaanbaxan oo dadkii ka qayb galay ka muuqatay shucuur aad u sareysay ayaa mas'uuliyiintii xarakada shabaabul mujaahidiin ee ka hadashay waxa ka mid ahaa Sheekh Fuad Maxamed Qalaf oo ku dheeraaday ka hadalka dhibaatada aan dhamaadka lahayn ee yuhuuddu la caadeysatay shacbiga muslimiinta ee reer Falastiin isagoo xusayna qisadii Qaybara isla markaana ugu bishaareeyay yuhuuddu inay mar kale dib u soo noqdeen ciidamadii jihaadka ee Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatay isla markaana iimaanaysa dawladda Islaamka. أننا قادمون بإذن الله قادمون من أفغانستان وقادمون من الصومال وقادمون من شيشان وقادمون من كل الأرض الذي يذكر الله جل وعلا. haddii aynu nahay mujaahidiinta ka dagaalanta Soomaaliya baayaheenu kama qarsoona waxa ka dhacaya masjidka barakeysan ee Al-Aqsa iyo dhibaatada xoogan ay idinku wadaan yuhuuddu sabra oo dagaalama qadiyadiinuna ha noqoto midda islaamka ayaanay noqonin mid dhuleed iyo mid carabnimo kolkaasuu alle idinla jiraa reer Falastiin oo ogaada mujaahidiintu way idinku imaanayaan Qudus iyagoo ka kala imaanaya Soomaaliya Ciraaq Afghanistan Chechnya iyo meel walba oo uu islaamku joogo. sidoo kale waxa isna banaanbaxan looga soo horjeeday dhaqamada foosha xun leh ee yuhuuddu ay ka geysanayso Falastiin iyo masjidka barakeysan Al-Aqsa ka hadlay nabadoon garaad fiidow oo isagu ku hadlayay magaca beelaha dega gobolada dhexe iyo Banaadir. waxaan dunida islaamka ugu baaqayaa inay ka qiiroodaan dumutul baytul maqdis waxaan ka qiiraysanahay oon ka tiiraanyaysanahay oon si maaragtay qiirana aan uga jawaabayna ilaahay idankiisna aan ku duka doonaa baytul maqdis. banaanbaxan looga soo horjeeday dhaqamada Israa'iil ayaa kuwa kale oo ku nooca waxay kala ka dhaceen isla maanta magaalooyin ay ka mid yihiin Jowhar, Baydhabo, Marka iyo deegaanada ay gacanta ku hayaan xarakada shabaabul mujaahidiin waxaanay banaanbaxyadan looga soo horjeedo yuhuuddu ku soo beegmayaan iyadoo muddo iminka laga joogo toddobaad kaliya ay askarta yuhuuddu ay xoog ku galeen gudaha masjidka Al-Aqsa iyagoo kala soo baxayna culimaadudiin halkaas ku cibaadeysanayay. Cabdinuur Muudde Al-Cadaala